saddex qofood ayaa ku geeriyootay qaraxii ka dhacay isgoyskan Xaaji Baaste ee magaalada Muqdisho sida ay xaqiijiyeen booliska waxaana dhaawacmay 6 qofood qarax waxa uu sidoo kale burburiyay gawaari fara badan oo yaalay goobo ganacsi oo ka agdhawaa isgoyska qaraxan uu ka dhacay waxa waxyeeladu ay gaartay sida oo kale goobo ganacsi oo ay sabab u noqotay in la xiro dhammaantood markii qaraxu dhacay taliska booliska gaar ahaan saraakiil ka socotay oo halkan soo gaaray waxay xireen dhammaan jidadkii kala duwanaa ee soo galay isgoyskan Xaaji Baasto waxaana ay sheegeen in qatar kale laga cabsanayo laakiin ugu dambeyn oo la sheegay in amnigu uu yahay mid la isku halayn karo waxa la furay jidadka kala duwan ee halkan inkastoo isku socodkii dadka iyo gaadiidku uusan wali soo laaban haddana waxa jira warka sheegaya in qaraxani uu ahaa mid bambaano gacanta laga tuuray oo gawaari goobta yaalay hoostiisa ku dhacay dabadeedna sidaas uu u suura geliyay in uu waxyeelo geysto taliska booliska waxa ay sheegeen oo goobaha ganacsiga halkan ka agdhow ay u sheegayeen mas'uuliyiintooda inay ka digtoonaadaan bacaha la soo dhigayo hortooda oo ay ku sheegeen in waxyaabaha qarxa lagu soo darayo cali aadan muumin goobjoog isgoyska Xaaji Baasto Muqdisho